najiyo waxay tiri ma baxaaye lagamana yaabo inaan gurigan ka baxo ilaa aan dhinto maahane. markaasuu asagoo xanaaqsan sheekh raaqib wuxuu ku yiri waa ku furay wax dan ahna kaamaliye iga bax oo guriga cideena aad. markaasay waxay ku tiraahday najiya hadal aad iyo aad cajiib u ah. xaqiiqatan anigu xataa i bedelay hadalkaas fikir aniga aaminsanaa awal ayuu iga bedelay. waxaa rajeynaa adigana inuu fikirkaas qaldan kaa bedelo. maxay tiraahday najiyo waxay tiraahday xaq uma lihid in aad gurigan iga saarto yaa mana iga saari kartid ilaa ciddadeyda ay iga dhamaato. nafaqada ama wax walba oo aa isticmaalayo oo masruuf iyo waxa u baahdan adiga dushaada ahaadeen. sheekh raaqib waxay ku noqotay arintii arin weyn oo amakaag ah. markaas wuxuu ku yiri gabar yahay waxa u hadlaysaa si geesinimo leh xishoodkana waa kugu yiri soco guriga cideena aad aniga waa ku furay. markaas waxay ku tiri ma hadalkaaga ayaan qaataa. waa hadal aad aad cajiib u ah. guriyo badan maanta ma dumi lahayn. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرنا أمسونا وايدين سلامي عيد مبارك عيد وناكسن عيد وناكسن ما توقعنا هاي ناقصك مشغول سنة ومركلة فيديو عصب أو مقال عصب وحايدين ليا هاي سودوادا ما انتو حاي نوضا قصو آد عجيب وحارجينا إلى كهيلي دونتان ميلو البوجوكتان سودوادا ترينك يوكاتيجين إنو بحسمو هكا بكن welcome to Umusuna. أصحابته هوري اللي جبتو حايدن ليا هاي لايك شير كومنتي. أصحابته عصبنا حايدن ليا ماشي جدودن مدو كديجا ولا الأديجا أنت قدرنا وصبرت هذا كميت هاي اسمرتين جلك واجر الكعجة. وأنتو حنورا قصة آد أجهلي دونتان بإذن الله. وحايدن كرجينا إن النقطان ضد إلى شقيو وذا شقين دافرا حارجينا هدي قصة كهشيد إلى ولالك إيجوسي شرقريسيد أصحابتا دي إيجو ددرتيد يا سود وهذا اسمرتينينا حوغا وحا كجرو ميكروفونك شقوق كستوى كسميه هدي شقوق كسي جرتو إيغرالي هذا وكبحي وهي إلاداس marka qisadayna ugu galno qisadan waxay ku socotaa gabar la yiraahdo magaceeda Najiya. magaca Najiya ka garo waa magac badbaadin. Najiyo waxay badbaadsatay mustaqbalka iyo gurigeeda inuu saburburin. haddaba Najiya iyo ninkeedii markuu furay maxaa kala qabsaday. qisadeena ila daawo tareenka uu ka tagin falan sura. qisadan aan ku bilawnay sheekhan raaqib la yiraahdo markii ugu horeysay uu xaaskiisa Najiya furo quraanka waxa lagu sheegay dalaaqa inuu yahay marataan laba mar uu dhaco. markii ugu horeysay uu furay Najiya wuxuu ku yiraahday soo bax oo guriga cidaad aad gabarey. Najiya waxay tiri ma baxaaye lagamana yaabo inaan gurigan ka baxo ilaa aan dhinto maahane. markaasuu asagoo xanaaqsan sheekh raaqib wuxuu ku yiri waa ku furay wax dan ahna kaamaliye iga bax oo guriga cideena aad. markaasay waxay ku tiraahday Najiya hadal aad iyo aad cajiib u ah. xaqiiqatan anigu xataa i bedelay hadalkaas fikir aniga aaminsanaa awal ayuu iga bedelay. waxaa rajeynaa adigana inuu fikirkaas qaldan kaa bedelo. maxay tiraahday Najiya waxay tiraahday xaq uma lihid in aad gurigan iga saarto yaa mana iga saari kartid ilaa ciddadeyda ay iga dhamaato. nafaqada ama wax walba oo aa isticmaalayo oo masruuf iyo waxa u baahdan adiga dushaada ahaadeen. sheekh raaqib waxay ku noqotay arintii arin weyn oo amakaag ah. markaas wuxuu ku yiri gabar yahay waxa u hadlaysaa si geesinimo leh xishoodkana waa kugu yiri soco guriga cideena aad aniga waa ku furay. markaas waxay ku tiri ma hadalkaaga ayaan qaataa. waa hadal aad cajiib u ah. guriyo badan maanta ma dumi lahayn haddii hadalkan sida Najiyo ay u tahay qof diinta aad u fahansan ay u wada fahmi lahaayeen. maxay tiri
ma hadalkaaga ayaan qaataa oo guriga ayaan ka baxaa, hadalka ilaahayna waan ka tagaa. ilaahay markuu ku yiri nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam haddii aad furtid xaasaskaaga ilaa ciddada ay ka dhameystaan kama bixi karaan guriga ilaa yacni wax faaxisha ee dhacda maahane, waana xad ilaahay uu dejiyo. sheekh raaqib arintii ama aayadii markuu maqlo waxay la noqotay wax uunan hore u maqlin. Tasiya meelaha nawaali war maxaa ka qaldan, waxay la noqotay amakaak meeshii maxaa u yaalihi meeshii cabaayadii ama maxaa la yiraahdaa qamiisku uu wato jaftay sida boor oo kale inuu ku haleysan yahay. asagoo xanaaqsan ayuu jeestay, kadibna asoo gunuunacayo wuxuu yiri wallaahi waa hadal aan loo dulqaadan karin, amase hadal aad u adag. sidii ku baxay najiya way dhoola cadeysay, waxay ka soo qaaday wixii ayada iyo xaajigeeda ama ayada iyo sheekh raaqib dhaxmaray in ay yihiin wax aan jirin, dagaalba inuusan dhicin, kaanama inaysan isku dhicin labadooda. najiya shaqadeeda guriga sidii u qabsan jirtay oo in la furaba aadan moodin ay howsheed u gashay. waxay ahayd maalin walba mid guriga carfisa, waxay ahayd mid maalin walba isdiyaarisa, isqurxisa, iscarfisa. albaabka oo sheekh raaqib subaxdii markuu baxayo iyo habeenkii markuu soo galayo jidka u fadhiisata. ilaa sidaas waxay ku socotay muddo 5 bari ah. 5 bari kadib sheekh raaqib wuu isceli waayay, wuuna usoo laabtay asagoo ka ahaan waaye. waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah in ay isku dhacaan. waa adin maqrib la galgalaya fiidiyowga soo boobsiinaya. marka sheekh raaqib iyo walaalkiis shaxna la yiraahdaa isku dhaceen. marka isku dhaceen najiya waxay tiraahday waxay bilowday in ay yacni heshiisiiso. mar walba waxay tiraahdaa walaalka la heshii. markaas waxay ku tiraahdaa uga sheekaysaa in uu heshiiska ama qaraabada in la xiriiriyo ay wanaagsan tahay, in oo ilaahay radihiisa iyo raal aanshaara iyo rabbi lagu helo, in cimriga iyo maxaa la yiraahdaa irsaaqada lagu waasiciyo. adiga mar walba ku celcelisaa. markay ka badbadisay sheekh raaqib hadalkeedu waxba kama soo qaadin, asagoo xanaaqsan ayuu albaabka ka baxay, lama uunan hadlin ilaa habeenkii oo kasoo laabtay. waxay uga tagay firaashkii oo wuxuu seexday sariir hoose, yacni sariiraha oo dabaqyada camal sariirta u hooseyso jiiftay. markuu sariirtii hoose seexday waxaa dhacday in muddo 10 bariya ee sidii kusii socoto. waxay ahayd najiya mid maalintii u diyaarisa cuntadiisa, cunto aad u wanaagsan, habeenkiina guriga carfisa, ayada iscarfisa, isnadiifisa, sariirteeda seexata. maalintii 11aad markii la gaaray, marka lama aynan hadi jirin ilaa yacni dan ay jirta maahane. maalintii 11aad markii la gaaray habeenkii ka wadaa waqtigii hore ee habeenka sariirtiisa hoosoo jiiftay. kadib adi waqti dambe markii la gaaro uu imaaday. markaas waxay tiri maxaa dhacay, maxaa sariirtaada ka soo waday. markaas wuxuu ku yiraahday waad isaameysay. markaas waxay tiri yacni qof kor ayaa hoos saameyn kara, laakiin hoos kor ma saameyn karto. yacni sariir kore ay joogta, asagna sariir hoose aad u dhow cadeey. markaas wuxuu ku yiraahday wallaahi walaalkay aniga heshiiska aan wadaysa u jeclid inaan heshiino waan aadayaa, aniga asaga bari ayaana yacni walaalkay la soo heshiinaya, waa u tagaaya. wallaahi ma jiro dhahay famil isfur lahaa ama kala tegi lahaa najiyo sidaadoo kale hadday gabdhaha dhan ahaa lahaayeen. qoys arintoodana banaanka uma soo bixi lahayd ee guryaha lagu xalli lahaa mashaakilka dhex maro. ilaahay nabigiisana been uuna sheegay markuu yiri gabar hadday ku sabarto xaajigeeda xun ilaahay wuxuu siiyaa sida aasiyo kaleeto sawaabkeeda kale. ilaahay yacni ajar iyo maxaa la yiraahdaa ha ku siiyo wax walba wanaagsan. ilaahayna waxa ka baryaa inuusan labadeena kala wadin. intaas ayay qisadeena maanta ku dhamaatay. qisadan waa qiso aad cajiib u ah. adiga maxaa ka faa'iiday? ani ahaantayda qisadan waxaa ka faa'iiday arin aad wanaagsan. xaqiiqatan waxaa aaminsanaa haddii gabar la furo in lagu laabto inay qalad tahay oo kale. waa wax iga dhacsanaa. ilaahayna muxuu dhahay at-talaaqu maratan. rabbi ma dhihi lahayn hadday wax xun tahay at-talaaqu maratan. nikaaxa maratan lama dhihin. fiiri
arrin weyn ayaa ku jirto. guryo badan oo Soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa gabadha maanta haddii la furo casirkii waa sii socotaa, subaxdii haddii la furo isla markii waa jiidanay adina la soo galay. marka waxaan soo dhexgalay adinkii zuhri iyo raal noqda. marka waxaa dhacday gabadha hadiiba la furo isla markii bacdii hore u sii qaadanay xilada guri lagu furo ma jooga ninkii iga soo baxo leeyahay isla markii saaka hadii la furo dad wallaahi waxa arkay subaxdii markay isfureen 5 saac jiifkoodii fadhigooda la kala qaatay. subhanallah, ilaahina adalaaq marataan yiri يعني waxa ilaa ugu dalay sidaan oo kale tanajiyo kale inuu ninkii uu dareemo gabadha wanaageeda shaydaanka intuu wax kala ka tusiyo oo gabadha marka hore ka didaaya. marka qisadayna halkaas ay ku dhamaatay. waxaan rajeynayaa insha Allah in guriyaheena ilaahay badbaadi karo anaga badbaadino. waxaan rajeynayaa in ay shaqaysiin wada shaqeyn dahfuran leegtoodan ha iloobin sheerta dhiirigelina ay tahay يا سبسكرايب إلى إسارتين ده آدي فرحة جنسة أصحاب تعصب مرة بقرالي يقصوا بيرس وحاجة اللي سودة هذا هاسمرتينين جنة كينا أو ذا شقين أو شقين درفرن لايك ولا الهديس قصدك وعجبن يقرأ على النقاب بإذن الله قصدك وعجبسي إن سوق ديار جينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.